kale ayaa kala qayb galay shir dhowr boqol oo arday iyo dhalinyaro Soomaaliyihii ay ku qabteen magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Lamahan Mareykanku horey waxay uga qayb galeen shirar caynkan oo kale ah oo ka dhacay gobollo Soomaalidu ay ku badan tahay dalka Mareykanka ku yaal. haddaba shirkii shalay Columbus ka dhacay ayaa wariyaha BBC-da ee Washington Maxamed Xaaji Xuseen Shiino waxa uu ka wareystay Xasan Cali Cumar Xasan Dheera loo yaqaan waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus. barnaamijkan hadda ujeedadiisu wuxuu ahaa baraarujin buu ahaa iyo isbarid ardada Soomaalida jaamacadaha dhigata kuwa high school ka dhigta iyo dhalinyarada sportska ciyaarta oo dhammaantood ahaa dadkaas ka qayb qaatay qabanqaabada shirka iyo isu-imaadka. waxaanu kareynay meel qaadaa adu 250 ilaa 300 sayeeshee dhalinyaro ka badan 400 baati. maxaad kala hadasheen oo aad tidhaahdeen maxayse iyagu idin yidhaahdeen? niyow sidaad og tahay annagu waxaan ku noolahay Mareykanka waayahana waxaa jiray dee hadallo badan iyo dhacdooyin dhacday carruuro Soomaaliyeed oo niman intaarna ay weli ku maqan yihiin taasoo walaac badan ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee waddankan ku nool. sababtoo waxa weeyaan ilmihii lagala soo cararay dagaalka iyo dhibaatada oo Mareykanka la keenay oo in wax la baro oo noloshoodana wax ku taraan nolosha bulshadoodana wax ku taraan in meeshii lagu celiyo isla mar ahaantaasna bulshadana ku noolahay oo runtii aad u neceb argagixisada ayaguna u arkay inay khatar ku noqon karaan ayaa waayahan oo dhan jirtay oo Soomaalida xoogaal oo ahayd. marka waxay ka mid ahayd qayb ka mid ah ayay ahayd baraarujin in laga wada hadlo arrinkaas oo la isweydiiyo maxaa faa'iidaha noogu jira maxaase khasaaraha noogu jira. marka dhalinyaradii markaasi aad u soo gudbiseen fariimahaasi iyagu ma garawsadeen ma idinka qaateen maxayse idinku yidhaahdeen? runtii barnaamijka dhalinyaradu ayagaa iska lahaa haddii aad fiirisid iyagaa lahaa banal bay samaysteen ka hadlahaya issuegan oo weliba aad xoogga u saaraya waxbarashada oo yidhaahdeen waa waxa keliya looga gudbi karo. waxay kaloo ka hadlayeen iyagaa iswaaninayay oo iska waaninaya khatarta ay leedahay arrimahaas. si fiican baan loo wada hadlay dhalinyaradaas oo aad dareemaysay inay yihiin dad og waxyaalaha waddankoodii ka jira iyo dhibaatadan labada walaada isdilayso mid walbaaba uu leeyahay alxamdulilah iyo ilaahay baa mahad iskale intuu midba mid kala dila dhahay. dad dareensan bay ahaayeen oo xitaa riwaayad soo bandhigay. marka riwaayadaasi maxay kaga hadleen maxay ku soo bandhigeen? waxay soo bandhigeen riwaayadooda 3 qaybood bay u qaybiyeen. waxay u qaybiyeen oday Soomaaliyeed oo qabyaaladista nin dhalinyaro jaamacad dhiganaya la hadlayo dhahaya maadaama jaamacadda ka baxayso waa lagu celinayaa Soomaaliya hoggaanina qabiilkeena ugu xoog badan madaxweynaha ka dhigayna. iyo nin kale oo walaada oo dhahaya warniyahow maxaa la yiraahdaa waa dhuntay waddankan gaaladaad ku nooshahay oo waad habuusan tahay aan ku celino kaala waddankii tag meel janno la galahayo adigoon kabaha lagaa bixin baa lagu geynayaa. qaybta saddexaadna waxay ku saabsanayd nin dawladda ka tirsan oo ama baarlamaan ka tirsan oo aan aqoon lahayn oo dhahaya maxaa la yiraahdaa adduunka oo dhan baa noo soo gurmanayo dadka Soomaalida wax u ballan qaadaya. 3 qaybood bay u qaybsamay. shirka ma idin kala qayb galeen dad ka socda dawladda iyo hay'adaha kale dabagalka? runtii shirka waxaanu ku marti qaadnay dad fara badan. waxaa marka noo yimid hay'adda dhalinyarada gobolka Ohio. waxaa kaloo noo yimid nin ah xiriiryaha guudka wakiilka gobolkan Ohio u jooga waddanka Mareykanka iyo hay'adaha kale ee nabadgelyada sida Homeland Security iyo Justice Department ama wasaaradda cadaaladda iyo weliba hay'adda sirdoonka Mareykanka. maxay idin yidhaahdeen sirdoonkaas markaad FBI-da weeyaan maxay idin yidhaahdeen? niyow runta marka laga hadlo dee dadka hadlay waxay ahaayeen u badnaayeen qolooyinkan Homeland Security iyo Justice Department-ga. qolana waxay soo jeedisay oo sharaxday dhibaatada ay leedahay in inta halka laga tago Soomaaliya la tago laga dagaalamo waddankan lagu soo laabto inay khatar naftooda gelinayso sharci ahaan ay ku xadgudbayaan qawaaniinta waddankan u yaala oo qof waddankan u dhashay uusan waddan kale tegi karin. waana guud iyo talo guud bayna bixiyeen. sidoo kale kuwan Homeland Security runtii gabar baa hadlaysay oo si hooyanimo ah bini aadamnimo ah oo waxgaradnimo ah oo ay ku dhiirigelin. waxay kaloo la yaabeen kulligood runtii dadkii meesha yimid oo ay sheegeen ay yiraahdeen weligeeya maana arag tire dhalinyaro ah oo aan iskuul joogin oo meel isugu timid oo intaan la eg. marka dhalinyaradu waanadaasi la soo jeediyey iyagu ra'yi kale ma ka soo celiyeen? aad iyo aad bay ugu farxeen waanada. iyagaana khudbadaha isu jeedinayay koojajkoodii baa meesha ka hadlayay ama nimanka horjoogayaasha ahaa
وهذا أرضي دنيا جامعة مدحوة هذا أرضي كلا سونا جامعة نورد أمريكا دن مدحوة كل وحا أمها النقي دتك شركة سوق قبل وحنا كنتي هاي أرن مركب هو الرئيسي أو ضد إنتالك أو ضد تاسو كلا كهذا يمير يسوي معدين. مركا مينيسوتا أرنتن أو كلا والله قبتي مركا مريمة إسكو حيران أمبا مسوا أرين نينك استعمل ماشي سكليمين. حقيقة شيء تاي وحوي يعني ورالكي هرتا دي دبعة ما ضمن والبا حالة هذا إيش السوق صعب يو دلني يرى مستقبل كنوعه إن نفسيرنا ماشي هذا يعني واحد قبنا يعني هرمر كله صوت أنا كأنه مدوسات مركب متشر واحد حرير جود وأنه من صوتي أنا أقول لنا هاي شركة الله قبتي حسن علي عمر حسن ديره قدوميها جالية الصومالي ده مجرد كولومبوس قبل كأوهايو ضلك أمريكان كأول رميجي وريها BBC ده واشنطن محمد حاجي حسين شينو محمد عبد القادر داود أو استنزل الله يقان وحا وكنوا لها مجرد خرطوم ودن كالسودان